kulanti wanaagsan daawadayaal guddigiinba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni sheekooyinka fanaaniinta iyo qisooyinka fanka Soomaalida. haddaba maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadeynaa fanaaniin Soomaaliyeed oo iyagu dhexdooda dhex yaalay cadaawad iyo weliba isnaceeb. haddaba waxaynu ka bilaabeynaa labada fanaan ee weyn ee isla dhashay Maxamed Mooge Liibaan iyo Axmed Mooge Liibaan. ilmo Mooge waxay ahaayeen fanaaniin fanka soo bilaabay lixdameeyadii, waxay ahaayeen xidigo fanka Soomaaliyeed uu u shidnaa ilaa uu fanaan kale ku soo caan baxay. haddaba labadaasi fanaan waxaa la sheegaa oo weliba dadka fanka Soomaalida u dhuun daloola ama falanqeeya ay sheegaan inay aad iyo aad u necbaayeen fanaanka weyn ee isaga la holin waayay ee codka dahabiga leh ee Xasan Aadan Samatar. ilmo Mooge iyo Xasan Aadan waxaa la leeyahay waxaa ka dhaceysay colaaltan iyo weliba xafiiltan dhanka fanka ah. haddaba cadaawadda iyo weliba naceebka ka dhaxeeyay ilmo Mooge iyo Xasan Aadan kumuusan salaysnaynin ayay leeyihiin dadka fanka Soomaaliyeed ka falooda mid shakhsiyadeed wuxuu ahaa ayay leeyihiin mid quseeya uun fanka. Xasan Aadan Samatar ayaa isagu saaxada fanka iyo weliba jawigii aadka ay u haysteen ilmo Mooge isagu qabsaday. wuxuu qadka kala baxay labadaasi fanaan tiyo sababtay inay iyagu xaasidnimo u qaadaan sida la leeyahay. Xasan Aadan iyo ilmo Mooge ayaa iyagu cadawtooyada iyo weliba xafiiltanka ka dhaxeeya waxay ahayd mid laga ogaa ama laga yaqaanay fanka Soomaalida dhexdeeda. si kastoo ahaataba fanaanka hees uu qaado oo la yiraahdo kuwa loogu magac daray muuqa aan la kala garan akumuhashadoodiyo heesaha macaan iyo muusiga iyo codkay dilay. dad badan oo ka faalooda fanka Soomaalida waxay leeyihiin heestaasi waa lagu gaaday fanaanka weyn ee Xasan Aadan Samatar. haddaba dad badan ayaa iyagu diida ama sheega in wax cadaawad ah aysan ka dhaxeynin fanaaniintaasi iyo weliba laga yaabay xafiiltan dhanka fanka inuu ka dhaxeeyay, laakiin naceeb ay isu qabaan ma jirin ayay leeyihiin dad kale oo iyakana dhanka kale ee fanka Soomaalida ka eega inaysan wax dhibaato ah aysan ka dhaxeynin fanaaniintaasi. haddaba fanaanada kale aynu soo qaadanayno waa fanaanada Qadra Daahir Cige. allah u naxariistay fanaanadaasi waxay ahayd fanaanad cod dahabi leh, fanaanad iyadoo aad u daayar fanka soo gashay kana gaadha meeshii ugu dambeysay. fanaanad codkeeda aad iyo aad u macaan yahay. fanaanadaasi waxay aad iyo aad iyadu naceeb ama waxay cadawtooye kala dhaxeysay fanaanada kale iyagu fanka soo bilowday lixdameeyadii ee iyadu ahayd fanaanada habka masraxiyeedka Soomaalida ugu haysatay Maryan Mursal Ciise Bootaan. labada fanaan Qadra Daahir iyo Maryan Mursal ayaa iyagu waxaa ka dhaxeeyay cadawtooyo iyo weliba cadaawad ka dhalatay kadib markii fanaankii weynaa ee Axmed Cali Cigaal oo isagu qabay xaaskiisana ay ahayd fanaanada weyn Maryan Mursal inay isagu jaceyl u qaaday inuu isaga jaceyl iyo xiriir la bilaabay fanaanada markaasi fanka ku cusbeed ee Qadra Daahir. haddaba Maryan Mursal ayaa iyadu magaalada iyo fanka gudihiisa waxa ay ka maqashay in labadaasi fanaan uu ka dhaxeeyo xiriir. Maryan iyo Axmedna waxay ahaayeen fanaaniin xiriirkooda jaceylkooda uu ahaa mid astaysan, taasoo ay ka sameeyeen iyadoo dad badan ay diidan yihiin inay isguursadaan maadaama Maryan ay ka soo jeeday qabiilka Midgaanta iyo weliba Axmed Cali Cigaal oo isagana ka soo jeeday qabiilka Majeerteenka. qabiilka Majeerteenka iyo Soomaali kale oo iyaga dood ka keentay inaysan isgeyn ayuu si kastaba ha noqotee Axmed Cali Cigaal wuxuu laabta u tuntay inuu jaceylkiisa ka dhabeeyo qoyskiisana uu seeska u dhigo. qoyskaasi labadaasi fanaan ayaa waxay ahaayeen qoys jaceyl ku astaysan, dadkuna ay aad iyo aad ula socdeen noloshooda. haddaba Maryan waxay ka xumaatay xiriirka dhow la sameeyay jaceylka xiriirka dhow iyo jaceylka uu la sameeyay Qadra Daahir tiyo sababtay ayaa la leeyahay inay baaba'do ama halkaasi uu ku burburo qoyskii Axmed Cali Cigaal iyo Maryan Mursal.
si kastoo ahaataba Maryan Mursal laga bilaabo cadaawad ayay u qaaday colaad ayaa la leeyahay Qadra Daahir maadaama qoyskeeda iyo jaceylkeeda ay burburisay si kastoo ahaataba labada fanaan ayaa iyagu xilli dambe waxaa la leeyahay way ka heshiiyeen cadaawadii iyo weliba colaadii dhaxmartay si kastoo ahaataba dadka fanka Soomaalidu dhundoloola ayaa waxa ay leeyihiin in xilliyadii dambe iyo waagii dambe ay saaxiibo dhow noqdeen labada fanaan cadawtooyadii ay isu qabeen ay maslaxaad iyo weliba ismasaamixin ay ku soo dhameeyeen ayaa la leeyahay fanaanka kale inuu soo qaadanayno oo isagu naceeb baas u qabay fanaanad kale uu isagu fanka soo geliyay xaaskiisana naqatay ubadna u dhashay ayaa waxa uu yahay fanaanka weyn ee Cabdiqays Cabdi Aadan Xaad Cabdiqays ayaa isagu waxa uu qabay uu xaaskiisa ahayd fanaanada weyn iyadu kol dhow dhimatay Allaha u naxariistee Aamina Cabdilaahi oo iyadu Jabuuti fanka ka soo gashay Cabdiqaysna uu soo gacan qabtay ubadna ay u dhashay ayaa iyadu Cabdiqays xabsi isagoo ku jira iska fasaqday kadibna guursatay fanaanka kale ee Cabdiraxmaan Dheer ninka la yiraahdo Cabdiqays ayaa isagu waxa uu ka xumaaday in fanaanada weyn ee Aamina Cabdilaahi oo iyadu xaaskiisa ay ahayd isagoo xabsi alambaqa ah dhex jiifa howtul hamagna dhex jooga in inta ay iska fasaqdo nin kale ay guursato abwaanka ayaa xumaantaasi uu ka qaaday dhibaatadaasi iyo dhaawaca ay noloshiisa u geysatay fanaanada Aamina Cabdilaahi waxa uu qaaday ay leeyihiin dadka fanka Soomaalida ka faalooda cadaawad aad u fog oo gunteeda ay fog yahay Cabdiqays ayaa isagu waxa uu heese ka sameeyay dhibaatadaasi ay u geysatay fanaanada Aamina Cabdilaahi iyadoo fanaaniin kale oo iyagu beesha Cabdiqays ka soo jeedana ay sidoo kale heese cajiib leh oo fanaanada taabanaya ay ka sameeyeen dhibaatada iyo dhaawaca ay utunta ay u geysatay fanaanka weyn ee Cabdiqays ayaa xaaskiisa Jabuuti ka keenay jeclaana ubadka ay u dhashan ay ahaayeen kuwii uu daawanayay abwaanka oo isagu siyaasadda iyo weliba kacaandiid ahaa awgeed ayaa xabsigiisa iyo weliba in la xidho xilliyo badan ay badatay tiyo ay dhibsatay ama culays ku naqatay fanaanada ayaa iyadu waxay go'aan ku gaadhay in maadaama Cabdiqays uusan xabsi ka dhamaanaynin in intay iska fasaqdo magaaladeeda ay nin ay jeceshahay ka hesho laakiin dhibaatada dhacdo waxay ahayd abwaanka oo alambaqa dhex jiifa xabsi mugdi ah oo howtul hamagna dhex jooga ayuu ka warhelay in xaaskiisii ilmahiisa hooyadood inta iska fasaqday ay fanaan kale ay is yaqaanin ay guursatay haddaba cadaawadaasi xilli dambe waa ay ka heshiiyeen ayaa la leeyahay inkastoo dad kale oo fanka ka faaloodana ay leeyihiin inay ka heshiiyeen in kale lama hubo fanaaniinta iyo colaadda ka dhaxaysay waa ay badnaayeen ayaa la leeyahay waxaana inoo soo socdaa fanaaniinta sida Magool Xaliimo Khaliif Cumar Magool Khadiija Cabdilaahi Cali Dalees Maxamed Axmed Kulu Cabdiqaadir Jubba weliba Faadumo Cabdilaahi Kaahin Maandeeq Hiba Maxamed iyo kuwa kale oo iyagu fanaaniin kale ay kala dhaxeeyeen xafiiltan iyo cadaawad aad iyo aad u weyn fanka Soomaalida oo ahaa isagu fanaaniin badan oo hibo iyo taalent la kulmiyay ayaa haddana kuwana waxaa ka dhaxeeya xafiiltan kuwana waxaa ka dhaxeeya cadaawad ay keentay sababo xiriir jecel ama ay keentay isu quuri waag dhanka fanka ah si kastoo ahaataba fanaaniinta Soomaaliyeed meel kastay joogaan xafiiltanka iyo weliba tartanka waa shay muhiim ah laakiin cadaawada badanaa ka dhaxaysay waxay ka timid howlo shakhsiyadeed oo aanan ahayn mid faneed si kastoo ahaataba waxaynu intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni dib dambe intaynu u kulmi doono daawadayaal waxaynu idinkaga tegaynaa nabadiin nooli kulantay amaana Allah